Asalaamu calaykum. Suudaan waddanka ugu xadaarada weyn qaaradda Afrika. Suudaan oo laga wado dhulka madowga horeyna looga aqoon jiray Itoobiyada qaaradda Afrika. Sidoo kalena waxaa la dhihi jiray Koosh ama dhulka Nuubu. Kulligeed waa magacyada waddanka Suudaan, mid ka mid ah wadamada ugu faca weyn uguna xadaarada qadiimisan qaaradda Afrika. Dhulka nimcadu fadhido ee Suudaan. waxay taariikhyahanadu isla garteen in Suudaan ay jirtay ilaa casrigii xajriga loo yaqaanay, iyadoo laga helay raadad caddaynaya oo ay ka mid yihiin madaxyo madow ah oo laga helay Khartoum agteeda iyo kuwo kale oo laga helay mandiqada galbeedka Niil. waxayna xadaarad Suudaan gaaraysaa 3,000 oo sano ka hor miilaadiga, waxaana la dhihi karaa in ka badan 6,000 oo sano ayay jirtaa. Suudaan waxaa ku kulma labada Niil, Niilka cad iyo kan buluugga ah oo loo yaqaano White and Blue Nile, waxayna ku kulmaan caasimadda waddanka Suudaan ee Khartoum. Suudaan waxay hoy u tahay xadaarado qadiimi ah iyadoo ay ka mid yihiin Koosh, Roy, Mubati, Culwa, waxayna intooda badani ka yagleelan yihiin agagaarka webiga Niil. waxaana isdhex galay taariikhda Suudaan iyo taariikhda qadiimiga ahayd ee faraacinta. inkastoo ay qoyska 25aad ee loo yaqaanay faraacinada madmadow kana xukumi jireen Masar, Suudaan oo ay ka mid ahaayeen boqoradii Dahraqa iyo dhaxankii. waxay Suudaan ahayd waddanka ugu weyn bad iyo dhul ahaanba qaaradda Afrika ilaa intii ay ka go'day Suudaanta Koonfureed oo noqotay dowlad madax bannaan. waddanka Algeria ayaa ah waddanka ugu baaxadda weyn qaaradda Afrika maanta. caasimadda waddanka Suudaan waa magaalada Khartoum oo ah magaalada ugu weyn, waxaana lagu qiyaasaa tirada dadka ku nool inay yihiin 1.8 milyan oo qof. Suudaan waa waddanka ugu hodansan marka laga eego xayawaanaadka, iyadoo lagu qiyaaso 103 milyan oo xayawaan oo isugu 30 milyan oo lo' ah, 33 milyan oo ida ah, 3 milyan oo geel ah, 37 milyan oo riyo ah iyo ku dhawaad 4 milyan oo fardo ah. dooradana waa ku dhawaad 45 milyan. kalluunka waxaa lagu qiyaasaa 100,000 oo tan inta webiyada waddanka ku jirta. inta badda ku jirtana waxaa lagu qiyaasaa 10,000 oo tan. inkastoo luqadaha ugu muhiimsan ee lagaga hadlo waddanka Suudaan ay tahay afka Carabiga, haddana waxaa intaas sii dheer ilaa 300 oo luqadood oo badankood yihiin asalka qaaradda Afrika. shacabka Suudaan waa dadka ugu shakhsiyadda wanaagsan dadka Carbeed iyo caalamka, sidoo kalena waxay ku jirtaa kaalinta labaad dhanka caalamka marka laga yimaado Ireland oo ku jira kaalinta koowaad. xogtanna waxaa soo gudbisay qaramada midoobay. waxa uu calanka Suudaan ka kooban yahay 4 midab oo midabka casaanku u taagan yahay dhiiggii shahaadadii reer Suudaan, cadaankuna nabadda uu ka turjumayo, madowguna geesinimada reer Suudaan, cagaarkuna khayraadka waddanka Suudaan. waxa uu waddanka Suudaan leeyahay goobo badan oo dalxiis. dhanka waqooyi waxaa ku yaala raadadkii mamlakadii Nuubiyadii qadiimiga ahayd, laguna tiriyo dhulka ugu xadaarada weyn adduunka. sidoo kalena waxaa ku yaala ahraamtii fircooniga ahayd iyo goobihii cibaadada ee xilliyadaas. waxaana ku yaala jusur murjaani ah oo laga helo kalluun aad u qurux badan, midabo kala duwanna leh. galbeedkana waxaa ka buuxda ciidda saxarada oon dhammaad lahayn. shicaarka Suudaan waxa uu ka kooban yahay shimbir loona yaqaano shimbirka xoghaynta ama secretary bird, isaga oo shimbirkaas labadiisa baal dhanka midig iyo bidix u jeedaan. sidoo kalena waxa uu leeyahay midabada madowga iyo caddaanka. waxaa ku yaala Suudaan beerta xayawaanaadka ugu weyn, laguna magacaabo Dender, waxaana laga helaa xayawaanaad naadir ah. badka beertan waxa uu ka weyn yahay badka wadamada qaarkood oo ay ka mid tahay dowladda Lubnaan. waa ka badan tahay ahraamta Suudaan kuwa ku yaala waddanka Masar, waxaana lagu qiyaasaa dhismaha ahraamta in ka badan 200 oo ahraam. waxaa la aasaasay ciidanka waddanka Suudaan 1925, waxaana qaybo ka mid ah ciidankaasi ka qayb galeen dagaalkii labaad ee adduunka. Suudaan waxay la daalaa-dhacaysaa dhakhaatiir yari, iyadoo ay 10,000 oo qof uu hal takhtar daweeyo, waxaana ku nool Suudaan ugu yaraan 50,000 oo qof oo dhagoole ah. Suudaan waa waddan ballaaran, lehna khayraad kala duwan, dhul-beereedyo, goobo kalluumaysi, iyadoo wax soo saarka beeraha aad loogu tiirsan yahay oo 80% ay tahay. suufkuna waa wax soo saarka ugu muhiimsan waddanka. sumsumka Suudaan waxay ka mid tahay wadamada ugu soo saarka badan marka laga yimaado India oo kaalinta koowaad ku jira. sidoo kalena wuxuu aad u soo saaraa siidda ama galleyda. markaan eegno wax soo saarka guud ee waddanka, waxaa shidaalka lagu tiriyaa 57% dakhliga xukuumadda, 89% dowladda Suudaanta Koonfureed. sanadii 2011 waxaa lagu qiyaasay wax soo saarka labada waddan in ka badan 5 bilyan oo barmiil. isku-geyskaaska dabiiciga ahna waa 3 trilyan mitir cubic, waxaana lagu tiriyaa in intiisa badan gaaskaas lagu gubo hawada iswulaka ah. waxaan soo garnay runtii iyo gabagabadii barnaamijkeena wadamada caalamka. inta aan ku kulmi doono isbuuca xiga, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.